yaabaa qaar dugsi sare inay kaga haraan halkaas ay ka jirto marxalad waalidka lacag la'aanta iyo dhibta haysa ay gabdhihii iskaga hari karaan iyaga ardadan wax badan baa guryahooda joogi lahaa wax badan baa waxbarashada ka hari lahaa waayo wacyiga ka jira waa soo hooyada istiishaba mid baa dib u hari lahaa anigu runtii hadda dadka guriga jooga oo aan ardayda meesha ay marayaan iyo saameynta waxbarashadu ku leedahay aad iyo aad baan la socdaa waan faa'iidada kaga faa'iideystay inaan u ardayad noqdo yani wixii faa'iido keeno waxa qiimeynta marka la sameeyo waxaan waa lagu faa'iiday maxaa loo baahan yahay inuu hor u sii socdo ayaa loo baahan yahay waagi baryaba awbax laga waraabsho waagi baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa mashruucan runtii wuxuu ka shaqeeyaa 16 iskuul oo ku kala yaala Sanaag, Bari, Highland iyo Karkaar 16 iskuul waa 12 dugsi hoose dhexe iyo 4 dugsi sare waxqabadyada uu mashruucan qabto waxa kamid ah waxa la tababaray 112 gudi waxa lagu tababaray fundraising-ka iyo maamulka iyo maareynta iskuulka iyo resource mobilization waxa kale oo mashruucan uu qabtay 274 hablood oo laga taageero fiiga iskuulka waxa kale oo uu qabtay mashruucan intuu socday 360 hooyooyin oo la baray asaasiga waxyaalaha asaasiga sida xuruufta iyo tirooyinka si ay uga caawiyaan ilmahooda dugsiyada hoose dhigta oo koowaadka iyo labaadka casharada laylisyada si uga caawiyaan waxa weeyaan mashruucaasi wuxuu ahaa mashruuc naajaxa runtii sanadkii saddexaadna hadeer madaxa la galay gabdho danyara oo agoon ah iyo rajooyin iyo dad aan waxba haysan fiiga lagaga bixin jiray dugsiyada hoose dhexe iyo dugsiyada sare qayb ka mid ah waxaan aad iyo aad u bogaadinaynaa mashruucaasi inuu ahaa mashruuc runtii midho dhalay gabdhihii ay ka faa'iideysteen kuwo kale ay ku soo hirteen iyaga oo iyana u dhow rajaynaya in mashruuca ay ka qayb noqdaan runtii wuxuu ahaa mashruuc dhaxalgala bulshaduna ay aad uga faa'iideysatay waxaan dareemaynaa inay wax badan ka faa'iideen gabdhuhu kor u kacna laga dareemay intuu mashruuc socday tayada waxbarasho ee gabdhaha iyo tiradaba mashruucu wuxuu qabtay dhismayaal iyadoo ay gabdhuhu inta badan qayb ka tahay caqabadaha haysta environment aan ku habboonayn marka ay maxay ahayd dugsiyada sida iyagoo aan lahayn musqulo gaara oo kale mashruucuna uu aad uga saaciiday gabdhuhu inay helaan suuliye u gaara iyo dhismayaal kaleba waxaan kale oo maxay ahayd toy mashruucu qabtay scholarship iyadoo gobolka Sanaag 67 gabdhood ay ka faa'iideysanayeen oo gabdhaha danyarta ah aan iska bixin karin fiiga aynuna ognahay fiiga laftiisu inuu yahay caqabad kamid ah waxyaabaha gabdhaha waxbarashada ka hor istaaga marka gabadha dhowr goor la weydiiyo lacagta fiiga ahayd inayba iskuulka uga tagaan weydiinta iyagoo aan awoodin inay iska bixiyaan tanina ay sababtay maadaama gabdhihii ugu liitay laga bixinayay inay ku dhiiradaan waxbarashadii mashruucan kobcinta waxbarashada gabdhaha waxa uu ka shaqeynayay 6 iskuul oo gobolka Karkaar ah laba kamid ah waxay ahaayeen secondary school afarna waxay ahaayeen primary mashruucaasi aad iyo aad ayuu wax u taray gobolka Karkaar iskuuladii uu ka socday mashruucaasi haddii uu istaago waxa weeye waxbarashadii qaybo ka badan oo kamid ah waa ay banaanaanaysaa waa mashruuca kaliya oo sida dhabta ah wax loogu qabtay gobolka Karkaar waxaan muddada u socday isbedel weyn baa ku yimid dugsiga xagga tayada gabdhaha wiilasha iyo guud ahaan iskoolka oo dhan aad iyo aad dugsiga mashruucaas wuxuu u qabtay muddadii uu socday hadday tababaro noqoto hadday noqoto dhiirigelin ardayda imtixaamaadka oo aad iyo aad aan weli noo soo marin sanad kasta mashruuca wuxuu noo sameeyaa ardayda markii iskoolka la xiraayo ardayda kaalimaha koowaad iyo labaad iyo saddexaad dhiirigelin buu noo siiyaa saasay ardaydu masad hadda tartan u galaanayn oo arday kasta wuxuu leeyahay kaalintaas yaan lagaa qaadin waxbarashada gabdhaha
marka loo fiiriyo xilligii mashruuca aan jirin waxaan oran karaa waa mashruuca keliya si loogu talagalay u fulay gabdho fara badan baa ka faa'iidaystay aniga iskuulkaygu 23 gabdhood ayaa ayuu ku lahaa 23 gabdhood waxay ahaayeen 23 gabdhood oo 17 ka mid ah markii hore iskuulka dhigan jiray meelaha iska jireen oo duruuf iyo saamax weeyday kadibna aan markii mashruucan aan ogaanay inuu jiro oo noo keenay aan raadinay oo keenay hadda aad bay uga faa'iidaysteen mashruucu sanadkii saddexaad bilowgiisii buu hadda marayaa runtii aad iyo aad bay looga faa'iidaystay qofka buka iyo ka da'weyn waa inaynu kaalmaynaa qofka buka iyo ka da'weyn aad baan horta uga mahad celinaynaa haddaanu nahay waalidiinta ardaydoodu nasiibka u yeelatay inay fursaddaa ka faa'iidaystaan waxaanu kaloo ka mahad celinaynaa 3 galaas oo naloo dhisay oo naloo ku kordhiyay dugsigii iyo 2 dayactira iyagana waa wax noo harayo waa ka mahad celinaynaa wax weyn bay noo kordhisay yani waxbarashadii dadka aad u dhigeyseen si fiican ayay wax noo tartay ama ay u muuqatay magaaladana looga dareemay waxaan leenahay waxbarashada ha naloo wado أنا قلت له برشة أنا هين قبلها حتى جوجا أو فيجا لقى تاجر جري ما جرت وحب بدنا يعني عهورتي أنا قصة كحيني حافظها وضنير أهان جوجي أو لا سوي جيه وايد سكول فبعدنا ما كان صوب ورناي أو كان يليري رجالنا رسية ولا يرقار بالي ذيك كبيا غير كده على يكسر ليري يصير بالمثل نركي $8 لقى بحناية شاننا كسر بيعن تيجي واحد يقول نقطة ليرجالين لو إحنا لا نهاي hawlka madaale wali waa hogadii baahidiina waa halkeedii waalidiintu aad bay ugu baahan tahay waxbarashadooda in hore loogu sii wado waliba qaybna lagu kordhiyo oo aad loo kobciyo sababta ay ku tahay hooyooyinku isuma quuraanin iyagu inay mushaharba iska bixiyaanin laakiin ilmaha waa u quuraanin oo culayska waxay saaraanin inay ilmaha waxbarashada kula dadaalaanin sidii naloogu soo qaabeeyay oo naloogu qalabeeyay oo naloogu furay abaabulkii waanu ka faa'iideysanay waanu idinka mahad celinaynaa in badan baan hay'ad tababaro guddi ahaan noo soo qabatay anaga qudayada marka tababaradii ma aanan laftigaygu guddigaygu ma aanan dayicin anigu waxaan ka mid ahay dadka ugu badan iskuulka soo noqnoqda oo la socda xaaladaha waxaan igu jira ilaa 4 arday oo 2 isku heer tahay mid heer gooniya tahay إنه وهرك استحاد كميراس وياهي مركا دقائق إن الله سعد عروض تقف والبدن بأوجه وحكلو كم إذا حقبت كيسي إن لساعدي قبلها female teachers كه يضو لتببري يضو محيه توي إن لسينا المشهر يضو لو سمي إسكول الذي ناديو قبلها سو وعي قلنا قبلها كلا هدلاي إني محيه توي إسكول كتجان كوعي قلنا early marriage كإن قبل يضو يرأي وحبرشة يجورو قتكتو وحاسودن أو إسبير صدي وحأي سببين inay runtii kaalin weyn ay ka galaan dadku ay ku baraarugaan sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashadii gabdhaha 10 gabdhood oo xubnaha iskuulka gudidooda annagoo 4 arday inaan ka bixino macnaha annaga xaqeega haneed inaan iska ururno khamiisaha lacag si aan ardayda fiidooda u soo qabano waxaan u dhisan guriga gabdhaha si fiican ayaa uga faa'iideysanaa oo baahiyada asaasiga ah dhammaan dabalay salahan marka qaarkood aan ku shifnaa waxaan ku dhigi karnaa gabdhaha saaxiibeyna si aan waxbarashadooda fududaan baahi asaasiga oo gaar ahaan naga sii tababarnay sida marka arabnay nashirin qabsano oo kale waa qolkana ku galnaa xafladaha oo kale waa ku sameeysanaa waxyaabo badan boqolku faa'iidooyin badan buu leeyahay mas'uulkooda kana runtii u mahad celinayna hay'adda